kulanti wacan wanaagsan khiyarta kala duwan ee daawanaysa ay ku soo dhawaada wararkii warbaahinta libdha waa maalin sabti ah 13 bisha February ee sanadka 2021 qodobo kala duwan ee ku daawan doontaan wararkeena waxaana kamid ah qarax Soomaali dhimashay dhaawac ka dhacay isku sayidka magaalada Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay qaraxaasi dawladda Itoobiya qaratay in falal kala duwan oo ka dhana xuquuqda aadan oo ay ka dhaceen gobolka Tigreega Turkiga oo doonaya in xawaalo ku yaala dalka Bulgaariya loo raro dalkiisa kuwaas oo ay kamid yihiin qoboraha qaar kamid ah hogaanadii dawladda Cusbaaniyiinta Mareykanka oo dadka maangeliyo doonka u furay inay soo galaan dalkiisa kadib doorashadii madaxweyne Joe Biden qodobadaasi ayaad ku daawan doontaan u diyaar garooba yagii oo faahfaahsan wadaagdaawada ku beeroon magaalada Muqdisho wararka imanaya ayaa sheegay in qarax ismeed aamin oo ka dhacay agaarka isku sayidka oo ah bar control ay leeyihiin ciidamada amniga dawladda federaalka Soomaaliya warka ayaa sheegay in qarax loo adeegsaday gaari nooca loo yaqaan noohada oo laga soo bixiyay walqaxaha qaraxa kaasi oo la sheegay inuu xoog ku dhaafay bar control oo ku taala nawaaxiga hotel Dayaxa waxaana la saas ku furay ciidamada amniga isagoo inta kadib ku qarxay isku sayidka oo ah bar control oo kale leeyihiin ciidamada dawladda Soomaaliya warbaahinta kula goobta ayaa sheegay in gaariga noohada oo ahaa mid cad uu ka yimid wadada dheer ee dhinaca Makka al-Mukarramo oo si xawli ah ku soo dhaafay controlka isgoyska dabka isla markaana ciidamada dawladdu ay rasaasayeen sidaan uu ku qarxay wuxuu hadalkiisa intaas ku daray in indhihiisa uu ku arkay meydka qofkii ismidaamiyaha ahaa ee gaariga watay iyo qof kale oo wadada mariyay iyo sidoo kale dhaawac dad kale iyo burbur ku yimid mooto bajaaj dhowra oo goobta mariyay ciidamada ka tirsan kuwa ammaanka ayaa sidoo kale goobta gaaray kuwaas oo xiray aaga meesha ay wax ka dhaceen ama ammaanka dawladda Soomaaliya wali wax faahfaahin kama bixin khasaaraha guud ee ka dhashay qarax iyo dhowr jeer oo hore isgoodka sayidka ay ka dhaceen qaraxyo noocan oo kala waxay wareeg ka soo kordhay daawadayaal waxaad ku daawan doontaan wararkeena dambe haddii aan ku socono qodobada kale wararkeena dawladda federaalka Itoobiya ayaa markii ugu horeysay qaratay in dambiyo dagaal iyo kufsi ay ka geysteen ciidamadoodu ay ka dhaceen deegaano kamid ah gobolka Tigreega ee waqooyiga dalkaasi kadib markii eedeymo kala duwan oo la xiriira arrintan ay u jeedisay qaramada midoobay iyo hay'adaha xuquuqda aadanaha mas'uuliyiin kamid ah dawladda ayaa xaqiijiyay in falal alxandaro ay ka dhaceen gobolka colaadu waafayeen Tigreega kadib guluf military oo ka dhana xisbigii talada hayay deegaankaasi TPLF haweeneyda Soomaaliyada ah ee ka ah dawladda dhexe Itoobiya wasiirka haweenka dhalinyarada iyo carruurta xukuumadda Itoobiya ayaa qoraal ay soo dhigtay bartida Twitter-ka waxay ku xaqiijisay inay jiraan falalkii hore loogu eedeeyay ciidamada dawladda inay ka geysteen gobolka Tigreega wasiir Firsan ayaa qoraalkeeda ku sheegtay in warbixin ay ka heleen kooxda u qaabilsan dawladda dabagalka iyo baarista tacadiyada task force ay ku ogaadeen inuu jiro kufsi gabagaba oo aan shaki ku jirin waxay tiri warbixinta waxaan ka helnay kooxda task force oo ku sugan gobolka Tigreega nasiib darro waxay la kulmeen kufsi gabagaba oo aan shaki ku jirin ayay tiri haweeneyda Firsan Cabdullah oo ah wasiirka haweenka dhalinyarada iyo carruurta dawladda federaalka Itoobiya wasiirka ayaa sheegtay in guddi hawleed ay wali wadaan ka shaqeynta xogta si loo ogaado tirada dhibanayaasha waxay sidoo kale sheegtay in dawladdu ku dadaalayso ilaalinta iyo ka hortagga tacadiyada ku saleysan jinsiga ee lagu kaco haweenka Tigreega ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa 4 bishii November ee sanadkii aan ka soo gudubnay weerar arya dhul ah ku qaaday si uu meesha uga saaro xisbigii talada hayay gobolkaasi ee Tigreega kadib markii ciidamadu ay qabsadeen saldhigyo military oo ku yaalay gobolka Tigreega waxaanu ku dhawaaqay guul kadib dagaal bil socday laakiin hogaamiyaasha baxsadka ee TPLF waxay dhawaan wacad ku mareen inay sii wadayaan dagaalka gaaritaanka ayaa wali caqabad weyn ku ah kooxaha samafalka ee doonaya inay gaarsiiyaan gargaar cunto oo aad loogu baahan yahay daryeel caafimaad wakaaladda gargaarka ayaa dhawaan ku qiyaastay 4.5 milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah taasi oo ah in ka badan 60% dadka Tigreega laakiin dawladda Itoobiya ayaa sheegtay in kaliya 2.5 milyan oo qof ay kaliya u baahan yihiin in gargaar degdeg la gaarsiiyo madaxweynaha ururka Lanqeyrta Cas ee Itoobiya wuxuu sheegay in 80% dadka Tigreega aanay wali awoodin inay helaan gargaar bini'aadanimo isla markaana ay suuragal tahay in kumanaan qof ay u dhintaan toddobaadyada soo socda macluul baahsan haddii dhinaca wadanka Turkiga safaaradda Turkiga ee wadanka Bulgaariya iyo muftiga weyn ee xafiiska dalka ayaa bilaabi doona qorshe wada jira oo dib loogu soo celinayo qubraha taariikhiga ah ee Turkiga ee ku yaala caasimadda Sofia safiirka Turkiga oo fadhiya caasimadda wadanka Bulgaariya Sofia Aylin Sakiskok iyo muftiga weyn ee muslimiinta Bulgaariya Mustafa Alishaki ayaa booqday qubraha oo loo yaqaan dhagarta Turkiga lambar 42 ee degmada Orlandisfi oo Sofia warshaha Turkiga lambar 42 waa qayb ka mid ah qubraha dhexe ee Sofia sida laga soo xigtay xafiiska muftiga oo ay saasiiri Sakiskok
iyo Haki waxay ku heshiiyeen in qubuuraha qaybo kamida lagu soo celiyo Turkiga. Waxa sidoo kale ku yaala qubuuraha gabadha Ottoman Sultan Murad shan ee Fatima Sultan, qubuurahaasi oo isna u baahan dayactir weyn. Danjire Sekiskoko oo la hadlashay wakaalada wararka ee Anadolu ayaa sheegtay inay kala hadlayaan dowladda hoose ee magaalada Sofia caasimadda wadanka Bulgaria sidii loo furi lahaa qubuuraha cusub ee muslimiinta Sofia isla markaana ahmid weyn loo siin lahaa taariikhda Osman iyo Turkiga iyo hidaha iyo dhaqanka ee Bulgaria. Qubuurahani waa hanti dhaqameed muhiim oo nagu xidha taariikhdeena hore isla markaana badbaadintooda dayactirkooda iyo dib u soo celintooda aad ay muhiim u yihiin. Waxaan u aragnaa inay tahay qayb muhiim ah u tahay iskaashiga xagga xiriirka ee aan la leenahay wadanka Bulgaria. Sidaasi waxaa tiri haweeneyda safiirka u ah wadanka Turkiga ee joogta wadanka Bulgaria. ugu dambeynna wadanka Mareykanka maamulka madaxweyne Biden ayaa sheegay inuu bilaabi doono in si tartiib ah ay Mareykanka u soo galaan kumanaan qof oo magangelyo doon oo haatan ku xayran dalka Mexico. Waxa uu sheegay in laga bilaabo toddobaadka soo socda uu ka howlgali doono codsiga 25,000 oo qof oo dacwadooda magangelyo doonka ay diyaar u tahay. Dadkan magangelyo doonka ee haatan loo oggolaanayo inay gudaha u soo galaan Mareykanka ayaa waxa markii hore laga rabaa inay iska diiwaangeliyaan oo iska soo baaraan baaritaanka cudurka COVID-19 kahor inta aan loo ogolaanin inay ka soo tallaabaan xuduudka. Tallaabadan ayaa lagu doonayaa in lagu laalo siyaasadii sida weyn loo dhaleelay jiray ee madaxweyne hore wadanka Mareykanka Donald Trump. Trump ayaa sanadkii 2019 meel mariyay sharci dadka magangelyo doonka ah ka hor istaagaya inay soo galaan gudaha wadanka Mareykanka. Sharcigan ayaa dhigay in muhaajiriinta magangelyo doonka ah ee ka soo tallaabaya xuduudka koonfureed ay ku sii hakadaan Mexico inta dacwadoodu ay go'aan ka gaarayaan maxkamadaha arrimaha socdaalka Mareykanka. Hase yeeshee maalintii ugu horeysay ee xafiiska la wareegay madaxweyne Joe Biden wuxuu laalay sharcigaasi iyo shuruuc kala duwan oo dhowr ah kuwaas oo maamulkiisa ka horeeyay ee Donald Trump uu arkay in aanay ku habboonayn dalkiisa isla markaana si weyn loogu dhaleelay arrimahaasi. Gudaha badalkaasi ayaan ku soo gabagabeynaa wartaminteennii koowaad ee warbaahinta Libdha. Waa anigoo idinkaga tagaya nabadgelyo.